iyadoo lagu jiro waqtigii la filayay inuu da'o amaba curto roobka dayrta ayaanu sanadkani di'in deegaanada gobolka Togdheer ayaa si weyn ugu tiirsan roobabka dayrta iyo guga maadaama oo bulshada gobolka Togdheer u badan yihiin xoolo dhaqato maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco qaar ka mid ah madax dhaqameedka oo si wada jir ah ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay xaalad biyo la'aaneed soo food saartay deegaanada gobolka Togdheer iyagoona sidoo kale xukuumadda iyo hay'adaha deeq-bixiyayaasha ah ugu baaqay gurmad degdeg ah wixii maaragtay muxsiniina ama hay'adaha maxalliga kuwa internationalka dawladda Somaliland intaba waxaan soo bandhigaynaa gobolkan iyo degmadan inay ka jirto abaar iyo biyo la'aan aad u daran maanta xaalad aad u daran oo biyo la'aan ah oo baad la'aan ah ayaa ka taagan gobolkan Togdheer ida laale cidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo sababana waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah ula soo gaaraan annagana waa nagu waajib oo dusha naga saaran inaanu samayno roobdoon oo marka hore intaynan bini'aadamka gacanta hoos dhiganin aan roobdoon ku dhawaaqno oo barasaabka inoogu dhawaaqo oo aan Ilaahay barino subhanahu wa ta'ala dadkii ku noolaa gobolka Togdheer waxay u guureen kilalka shanaad iyo xadka Soomaaliya nahay iyo guban markii hore hadaadi ayaa ku haray tuulooyinka gobolkan ka kooban yahay maanta waxa soo noqday dadkii hayaamay oo kilalkii shanaad iyo meelaha guureen ka soo noqday soo degay dhulkii oo aan biyo lahayn baadna lahayn dadkaas waxa maanta noogu daran ee halka ugu dhinta waxa weeyaan waa biyo la'aan baahsan oo haysta gobolka waxaanu ka codsanaynaa dhammaan hay'adaha waxbixiya xukuumadda dadka qurbo jooga iyo tujaarta Somaliland dhammaantood inay u soo gurmadaan dadkii gobolka Togdheer oo maanta baahi biyood ay hayso meelaha jira mawsaxada markaan tagnay Bledhiig oo kale caruurta ardayda mawsaxada wax loo kareeyay ayaa lagu tagay inta oo dadkii iska urureen wax u kareeyay markii caruurtii ku baqtay gaadhay meesha dhibta mawsaxada marisana waa garanaysan culeyskeeda sidaa darteed mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba dhammaan dadka muxsiniinta hay'adaha kuwa maxalliga iyo kuwa internationalka aba qurbo jooga iyo qolqol joogaba waxaanu ka codsanaynaa inay mataqaana u soo gurmadaan dadkooda iyo xoolahooda hadda toddobaadkiina dhaafay baan soo sameeyay assessment ballaaran oo kormeer ah iyo raashin qaybin isugu jiray hay'adda Narfor hadaan nahay waxaan raashin u qaybinay 950 qoys oo ka kooban 8 degmo oo gobolka ah meelihii ugu darnaa runtii xagga biyo-la'aanta loo qiimeeyay iyo meelihii dadku xilligii hore ay u guureen hadda dadkii way soo noqdeen dadkii Itoobiya hore ugu guuray way soo noqdeen meeshii hore biyo la'ayd ayaa imikana culeys hor leh oo runtii ku soo dhacay xaaladaas waa xaalad maaragtay runtii halisteeda leh oo aad maaragtay halis u daran ha ugu horeysa biyo la'aanta iyo cunto la'aanta meelaha qaarkood waxaan soo arnay dameerihii ku dhimanaya oo maaragtay haraad awgii u dhimanaya hadii dameerihii dhinteen de xoolihii kale way ku jireen way ku xigayaan marka dambe dadkii waa xigaya marka xaaladda ugu daran horta waxa weeyaan waa biyo la'aan dhammaan gobolka 90% waa biyo la'aan ayaa ka taagan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hay'adaha iyo dawladda iyo cid kasta iyo qurbo joog in arrimahaas ay ku baraarugsanaadaan xaaladdu ay marayso SOS gobolka Togdheer abaar weyn baa ku habsatay mid biyood mid daaqsimeed baqadin weyn baanu qabnaa inay maxay haytay xoolihii imka way bilowmeen dhimashadoodu way bilowmeen in maxay haytay ay gaadho ta aanu ka qaylinayna waxa weeye gobolaan hadaan wax garadkii iyo cuqaashi iyo maxay haytay salaadiintii naayba ka aanu ka qaylinayna waxa weeye in dadkii maxay haytay leedo oo dadku ku xigsado sidii loo badbaadin lahaa reermiyigii iyo xoolihii iyo dunyadii sida loo badbaadin lahaa baan adduunyada baaq ugu diraynaa maamulka jira iyo dawladda waxaanu leenahay iyo baac mushtariga iyo qurbo joogtu intuba qeyla dhalaanta ay dhagaha u sii daysaa si degdegana wax looga soo qabtaa dadka iyo xoolaha waxay isu dabahayaan sida boololada oo kale ilaahay tacajab buu ku keenayaa markaan tuulooyinka soo marnaan waraysanay waxa ka jira ee biyo ah ee dadkaas u soo noqday waxay dadkaas noo sheegeen in weysadii ay dhib tahay dadkii waxa soo raacay laba oo laba iibsado dadkii reer miyiga ah waqti bay ku dhow yihiin xagga biyaha iyo xagga baadka in xoolaha haystay laga iibsado marka dawladda iyo hay'adaha iyo dadka wax bixiyaba waxa uu leeyahay dadkii waxa ku haysta abaartaas biyo iyo baad labadaba way leedahay waxa la soo gaaro gobolku aad buu biyo leeyahay waa la idin baahayay ayaan le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco.